Hey, maxaan haysi maanta? 8 questions with employee of the year. Okay. Su'aasha koowaad. Waxaan qornay su'aasha koowaad. Magacaaga iyo title-kaaga. Magacaygu waa Axmed Saalax, waxaan ahay Senior Software Developer ee shirkadda Yoltech. Su'aasha labaad. Meeqa sano ayaad Yoltech joogtaa? Waxaan joogaa Yoltech wax ka badan 2 sano ayaan joogaa. Su'aasha saddexaad. Maxaad is leedahay waad ku mutaysatay shaqaalaha sanadka? Waxaan is leeyahay inaan ahay qof macnaha commitment leh oo shaqadiisa si fiican u guto, sidoo kale qof degan ah iyo teamkayga oo macnaha dad wanaagsan oo macnaha noo aan ka helo waxyaabo caawimaad u baahan aan ka helo. Marka waxaan is leeyahay intaas ku mutaysatay is leeyahay aniga. Su'aasha afraad. Waa kuma qofka kuugu dhow marka shaqada la joogo? Asxaabtayda dhammaan waxaan nahay dad aad isku dhow oo mar walba isla ciyaaro oo dhanka sportska, laakiin qofka igu dhow hadda waxa waaye Yaxya Sidiiq oo qof aad igu dhow ah, mararka qaarkood aan sameeyno exercise. Su'aasha shanaad. Markii shaqada laga soo tago ma jiraa qof tiimka ka mid ah oo aad dalxiis wadan lahayd? Haa, wuu jiraa. Waxa uu wadan lahaa dalxiis Axmed Soomaali. Su'aasha lixaad. Maxaad ku dhiirigelin lahayd dhalinta danaynaysa inay bartaan xirfadaha aad ku shaqaynayso? Waxaan kula talin lahaa dhalinyarta rabta inay barato xirfadayda oo kale inay marka koowaad ay yeeshaan horta go'aan adag. Qofka hadduusan go'aan lahayn ma gaarayo macnaha hadafkiisa. Marka waa inuu noqdaa qof commitment leh oo mar walbana jecel mar walba inuu nafsadiisa horumariyo. Su'aasha toddobaad. Haddii dib lagu celiyo xirfadaada, dib ma u dooran lahayd in Yoltech aad la shaqayso? Haa. Su'aasha sideedaad oo ah su'aasha ugu dambeysa. Coffee ama shaah? Coffee inta badan isticmaalaa markaan sameeyo weliba markaan aad mashquulsanahay. Marka waxaan dooran lahaa coffee.